ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay 5 kalena way ku dhaawacantay laba qarax oo lala eegtay xarunta ciidamada Amisom ee magaalada Muqdisho. Qoobta qarax ka dhacay waxa ay ku dhawaayeen garoonka diyaaradda ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah ilaalada hay'adda qaramada midoobay ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen dadkii qaraxaasi ku dhintay. Saldhigyada ciidamada Amisom ee ugu waaweyn ee Soomaaliya iyo safaaradaha dalalka reer galbeedka ayaa halkaasi sidoo kale ku yaala. Qaraxyada mid ka mid ah waxaa lagu dhuftay darbiga dhismaha Amisom, mid kalena wuxuu ku dhacay bird control. qiiqa ayaa la arkayaa ka soo baxaya goobta qaraxu ka dhacay. Sida kale rasaas xoog leh ayaa laga maqlayaa isla goobta, mana jirto cid sheegatay mas'uuliyadda. Al-Shabaab ayaa sheegatay qaraxyada saaka ka dhacay magaalada Muqdisho ee waddanka Soomaaliya.